بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميلت جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذا ما يلو عدي لبنبك الله كقادو عدي دن لا له وفيه انت بهنا الله ديقو انت بكتا الله بوكسيو انت دبتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستو أنا الله نوقد ونحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil kelmadaan ka oranaya. qodobka labaad Minnesota oo uu ka dhacay xaadiso la yaab leh ay ka dhacdayna kelmadaan ka oranaya. aan ku hormar dagaalka waxaa dagaal dhex maray Iran iyo Israa'iil. gacan qaadka waxaa lahaa Israa'iil waxa uu ahaa wiil kibray oo qooqay Netanyahu oo maalin walba intuu reer duqeeyo ama wadan duqeeyo burburiyo ku nabad gala. Lubnaan buu dhulka la jaray, Syria weeraray, kuwaan waxba yeelin buu weeraray. Falastiin waa aragtay wuxuu ku sameeyay 1948 laga soo bilaabay ilaa hadda buu dhulkooda xoog ku haystay oo maalinba qayb qaadanayay annaga la wareegayna. waxa uu marka bartay gardarre garab og intuu dad duqeeyo inaan waxba gaarin. dagaal buu ku qaaday Iran, wuxuu ka laayay niman madaxa oo jeneraal ah iyo niman saynistiyaal ah oo ahayd khubaradii sameynaysay hubka nuclearka. doodiisu waxay ahayd nuclearkaas baan loo ogolay nimankaas inay lahaadaan oo adiguba waa leedahay maxaa iyaga u diiday. yaa yiri dad gaar ah lahaan kara. dulmiga iyo cudwaanka iyo kibirku ama qooqu meeshaas uu ka gaaray ana haysan kara laakiin cid haysan karto kale ma jirto. xogta xataa dadka la laayo waxa la sheegayaa laba qaab in lagu helay. qaab inuu yahay hay'adaha caalamiga ahaa oo tii ilaalinaysa nuclearku inay sir bixisay ayaa dooda kamid ah Iran ay hadda faafinayso. waxa kamid ah inay ku dhex beerteen dad sirdoonkooda oo la yaqaan qof walba oo madaxa ama qof walba oo saantiista ama meesha uu degan yahay la yaqaan. waxay sheegeen wararka qaarkood Israa'iil inay tiri waxaan rabnay inaan dilno Khomeyniga laftigiisa odayga ah oo Iiraanta xukuma oo shiikha ah, laakiin Mareykanka uu yiri ma taaban kartaa ninkaas arintaas waa too much joojiya. waxa dhacday dagaalo isdhaafa oo labada dhinacba u dhaxeeya ayaa waxay dhacayeen 3 maalmood oo la soo dhaafay. haddeer aan duubayo clipkan saacad ka hor ololkii baxay 2 saacadood ka hor ololkii baxay. haddeer saacad ka hor wali wuu socdaa waa la demin lahayn. waa Tel Aviv meelaha waligood la gaarin. waxaa dhacay khasaare mucjiso ah oo aysan filayn oo aysan waxay ka qaban karaan la arag. iyagoo haysta awoodii ugu dambeysay oo America baa meel kasta la duqeynaya. khasaaraha wax yar baan ka sheegi doonaa, laakiin waxa ka horeysa Mareykankii inuu iska fogeeyay. Donald Trump waxa walba ka filo xoogaa lacag oo xoog lu ka soo qaatay qolyaha Carabta. waxaa dhici karta in wax laga bedelay. wuxuu dhexaad baan ka ahay. waad aragteen wasiirka arrimaha dibadda oo soo qoray arrintaas Israa'iil bay u taala shuqulna kuma lihin. annaga yaa nala duqayn meelaha aan deganahay ciidamadayada Iran ammaan ha siiso. Mareykanku wuxuu og yahay xogta ah awoodda Iran leedahay. Israa'iil oo marka ahay wiil yar oo buli ah oo u bartay ciidan iska dhicin karin iyo caruur inuu laayo baa waxaa ku bariyay waa meel kasta oo kamid ah wadanka waa la duqeeyay. aaladii xadiidka ahayd oo cusbayd oo khatarta ahayd oo hub kastaanu qabanaa lahayd waa la dhaafay. saacad hadda ka hor 9 gantaal baa gudbay oo dhaafay aaladii qaban jirtay gantaalaha oo u dhacay dadkii oo baaba'shay. ilaa 4 qof bay dileen saaka. 103 baa dhaawac haddeer aan idin la hadlaya maraya oo maanta kaliya shalay iyo doraadiyo wuxuu marayaa 450 qof oo dhaawac ah. weligood ma arag dhib intaan leeg. dhimashaduna waxay sii dhaaftay intay qarinayaan ma naqaan, laakiin inta ay sheegeen iyagoo weliba dadka loo sii digayo leey dhulka hoostiisa gala bay haddana waxay u dhinteen si fiican oo tiro badan. arrintaasi waxay muujinaysaa iska difaac iyo iska caabin xoog leh inay la kulmeen. markiiba waxay bilaabeen wada hadal. wararku waxay sheegayaan Netanyahu inuu baxsaday oo diyaarad ku baxsaday kadibna maanta la arkay isagoo ka soo baxay dhulka hoostiisa
oo booqanaya meelihii la burburiyey wax la yaab leh oo ay ku arki jireen wadamada ay iyagu duqeeyaan oo burbur ah oo yani inta uu leeyahay aan la qiyaasi karin baa soo gaaray waxa kamid ah bildhimo si dhamaystiran dhulka ula sinmay oo bildhimo dhaadheer ah sidii kuwii Gaza oo dhulka ka hoos maray waxa jira oo la yaab leh xiriir ciidamada baa mid loo duqeynaya Iran waxay leedahay ballistic missile-ka aan dirayno oo codkiisa ka dheereeya wuxuu ka gudbayaa aalad kasto ay haystaan waliba kuwa aan wali isticmaalin baa jiro supersonic la yiraahdo oo aan wali taaban oo soo socda inta ku hartaa ka daran buu leeyahay waxay leeyihiin waxaanu beegsanaynaa manduumaadka ama ururada iyo meelaha shaqada iyo dawladda baanu beegsanaynaa waxa kaloo la ogaaday oo arrintan ay fashishay Israa'iil inay dadka gabaad ka dhigato oo xiriyeedu ku dhex yaalaan dadka shacabka dhexdooda meel kasto xero la duqeeyay afarta koone waxa kaga yaala guryo dhaadheer oo dabaqyo apartments ah oo dad ay ku nool yihiin shacabka waxa kamid ah waxyaabaha meelaha ugu badan oo horta la duqeeyay Haifa iyo waxa weeye iyo Tel Aviv waxa burburay gabi ahaanba infrastructure-kii ciidamada waxa la sheegayaa in la duqeeyay diyaaradihii F-16 iyo F-35 xarumihii hangaradii ay ku jireen lagu duqeeyay oo ay deganaayeen oo diyaarado badan halka ku gubteen ma xaqiijin karno wali sawirada ma arag kuwan beenta oo la wareejinaya aragnay laakiin wali ma hayno tii dhabta ahay waxay duqeeyeen electricii Tel Aviv korontada hay'adii siinaysa waxay qiratay in la duqeeyay oo aysan qaybo dhan oo Tel Aviv kamid ah aysan koronto haysan saacada hadda aynu hadlayno dabkiina la damin la yahay waxay duqeeyeen maadaama iyaga laga duqeeyay gas iyo meelaha oil ka soo baxo iyaguna waxay duqeeyeen saddex meelood oo oil ka soo baxo oo Israa'iil ay leedahay midda koowaad waxa la yiraahdaa Haifa ku taala waxay soo saari jirtay 10 milyan oo tan oo nafta ah bay maalintii soo saari jirtay halkii maalin midda labaad waxa la yiraahdaa Bazan lilkiimaawiyat Bazan baa la yiraahdaa Bazan iyaduna 200 oo kun oo barmiil oo nafta ah bay maalintii soo saari jirtay waxay ahayd Haifa Haifa meeshada wax soo saarkeeda energy-ga waxay siin jirtay Yurub ayay waxay siin jirtay korontada iyo oil-ka ayay Yurub siin jirtay marka halkaas waxay geysteen dhibaato aad u xoog badan oo xagga energy-ga ah waxay kaloo geysteen ciidamadii ayay ku duqeeyeen xeryahoodii waxa kamid ah xeryaha ay duqeeyeen xeradii heerkootarka wahayd intelligence-ga ee Tel Aviv centerkeeda ku taalay xabadihii madaafiicdii uu ridi jiray ama sayruuqii uu ridi jiray geedka ka hortaga sawaariikhda maxaa xaafadaha loo dhexgeliyey waxay ku eedeyn jireen Xamaas dadkay ku gabataa iyadana waxaa caddaatay inay dadka ku gabanayso waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday oo la yaab noqotay caalamka oo dhan marka laga reebo xoogaha reer qarbi ah oo dawladaha ah caalamka oo dhan waa dabaaldegaya waxaana lagu faraxsan yahay dhibaatada nimanka ku dhacaysa maxaa yeelay 2 sanadood oo 2 bilood dhima 20 bilood bay dad caruur iyo haweena madaxa ka tooganayeen oo ku kibreen oo wali ay banaanka la taagnaayeen waa dhamaynayna caruurtoodu waa dambiilayaal oo argagixiso bal ilmo dhashay argagixisaha xagee lagu arkay dadkii oo dhan baa hurdadii ka kacay caalamkii oo dhan baa toosay waxaana lagu toosay qaracan iyo arxan darrada dadkaasi ay leeyihiin ba ummadu la yaaban tahay bini aadanimadoodii aaway baa la leeyahay caalamkoo dhan marka waa ku faraxsan yahay wax ka naxayaa ma jiraan famaa bakat calayhim as-samaa'u wal-ardu wamaa kaanuu mundariin baan maqli jiray aayad qur-aana oo ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay qolo la halaagay oo cidina aysan u ooyin cir iyo dhultoona loogama ooyin uu ilaahay oran jiray ciladii baa ku dhacday nimankii waxay noqdeen cadowga caalamka oo dhan dadkii oo dhan baa cadow ah intaas oo dawladood ba cambaaraynaya waxa ceeboobay oo kaliya waa wadamadii carabta ahaa ama muslimka ahaa oo in badan oo kamid ah ayba hoos ula shaqeystaan oo ay jawaasiis u yihiin waxa kale oo iyaduna la yaab leh waxa la sheegaya wadaado Nairobi ka hadlayay oo leh laba gaala diriraysa kaba soo qaadeen laba gaala yihiin horta inay gaala tahay shiicadu iyo inay muslim tahay mas'ala khilaafiya culimada dhexdooda
كما سوقان قاليه مذهب كودا أرفع إلهي سوما أورن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إلهي سوسام أورن ينصر من يشاء العزيز الرحيم نصر إلهي با إيمان دونا وحاقوا ليسان دونا روم وهذا لقاعد كهذا دور سنة كدب وحين كوكو ليسان دونان إلهي قول أسيي قول شاء يضع وحاكو فرح دونا نبقى يا صحابة إيو تدك مؤمنين تا